بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة الخير، ما أنت رنتي أنا جمالين آدي وين أو فرحد وين إجليني سواية إن أنا بحض إماذا وفرحد ضد كان إن أنا سود حستاج وفرحد كلا ذكر السلام اللي يقصد دوين وفرحد كلا أيضا علماء آد أيان مهد علينا يا وحنا هايستنا وإنتان نمانكو ويلشيني أهايين لكن ويلشيني والله خلدي قلبك يا عقلك وحباس لو وشبي واي أنت أي وحاس قلبك وذو كجر وعدو أنت أي آمن سيهن وحق الله عن أي آمن سيهن وعدو كي كسون نقضة أنت برارجة صون نقضة وحاله بينا يا إنه كتنزل وحي أو صون نقضة لكن وويل كيندي دي بعد دل كان دلان أهين مقابو دل كان دلان أهين مقابو والله خلدي ما أنتودن وأشجنا إن لخلدو هاي إن لخلدي كي قاتي إن أو فهمي أو إن لخلدي قاتي صون نقضنا وويل كيندي كي قادن وايه مبدأ آسي مسكحة كويستي آمن سن ولسي سعودنا وعدو وانا لسك دعينا رار بحضو ايقا ايا تصي شباب ان لقاعد كاكرة دادك حد وايه عن دمك ولي قيدنا شباب تاريخ دا شان يطبان كسانو يجرجر كي اي دالكان يؤمدن بدي بيين meelaan culimada aanay yac ka dhihin yac lagama dhihin haddii ay galgaduud qaybaheeda kala tahay iyo haddii ay mudug tahay iyo haddii ay meelo kala tahayba meesha culimadu ay u istaageen nimankaas qaladkooda in la diido ayaa laga diiday meeshii tabardarro ay qabatay oo maxaanku idhaahdaa wax u shaqeey waayeen waa halkeeda laakiin codka keliya ee hor istaagnaa nimankaa ee yac lahaa ee maya lahaa ee ma jirto ee waa beentood lahaa culimmaday ahaayeen culimmada ma aha midda ay sheeganayaan ayaga qofku khamiisna waa qaadan karaa cimaamad weynna muxuu ahay korka waa ka soo huga karaa culimmannimo intaas ma aha culimanimo waa waxaad dadkaada u sheegtood bartaa daliil u ah inaad nin caalima tahay in kale haddaad cilmi leedahood gurigaaga la seexato gurigaaga la seexato culimo ma ahayd haddaad cilmi leedahood ilaahaaga ku caabudood ku toosto nin taqi ahaad tahay ee culimo ma ahayd haddaad dadka inta soo hor istaagto waxa xunna aad ka celiso waxa toosanna aad u tilmaanto oo wadadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo sunnadiisii aad dadka aad tusisid markaasaad caalim iyo callaama intaba aad tahay markii dadka la dulmina ee lagu edabdaroona ee intii diintu ay fartay in la ilaaliyo la ilaali waayo oo intii diintu ay fartay inay la reebi waayo hadda maalintaas waa maalintay muxuu ahay ninka culimmada ahoo saxda ay u baahan tahay maalinteedii aana ka soo baxdeen masaajidka ilaahay waa u jeedaa xabadaha ku yaallo hadba dadkan meesha jooga xabadahaas kuma dhufan masaajidka ninkaan masaajid qofkan ku jiro aanay ka ammaan helayn kii sujuudsan uuna ka ammaan helayn kii weesaysanaya aanu ka ammaan helayn kii alla dartiis u socdo waddadiis iska maraya xataa oon waxaasoo dhanba iyo siyaasad iyo dagaal aanan ku jirin anuu ka ammaan ka helay haddee anuu ma aqaan wax runtii lagu tilmaamo 29kii bisha oktoobar ee la soo dhaafay dadkii zooba agaarkiisa lagu laayay dad dagaalama ma ahayn qoryo ma sidan islaan meesha muxuu ahay hilib ku gadaysa mid gaari gacmeed riixaayo oo moos iyo mambeelma ay u saaran yihiin oo iibinaayo arday wasaaradda tacliinta yimid oo shahaado raadsanayo mid baabuur meesha taagnaayo safar ahaayoo socday saaran oo safar ah sidiisaba mid maxaanku idhaahdaa xaafadaha ka soo baxay oo bajaaj saaranoo asna jidka zaxmad yar inta ka gasho waxeeye 100 iyo jarjar qofoodoo ka mid ah
dadka noocaas asaas sifahaas leh ninkii dilay ee weliba waad maqasheen hadda inta soo istaagay haddana dhahayaba wixii saxa ayaan samaynay oo muxuu ahay ridaan wasaaraddii ma gelin dadkeedii ma dhiman wax kama bi'in dadkaas musaafiriinta iyo saakay biilka ilmaha u soo doontay ee jidka taagna wax ku dhintay maxaa lagu micnaynaa sanad ka horna 600 oo qof aa meeshaas ku dhimatay 5 sano ka hor 600 oo qofooda hal subax ku dhimatay maxaa lagu micnaynaa dadkaas abriyada ah oo dhiigooda saas u daatay annaguna inaan fiirsanno seena yeelaynaa waana telefonaa la ii soo diray waa la idilaahe saan yeelaahe waa magaciisii aan dhahno waxaan u malaynayaa culimmadana waa joogtaaye meeshaas inuu dembi ka jiraan u malaynayaa maxay ahayd munkarka gacantaada ku suuli haddaad aragtood munkar u aqoonsato gacanta haddaad kari waydo carabkaaga iyo afkaaga ku suuli haddaad kari weydo qalbiga ka nac qalbi ka naciddaas maxaa la yidhi marka waa adcafu liimaan wadalika adcafu liimaan waaba karnaayo waaba kanaa waaba aragnaya maxaan qalbiga keliya uga nacaynaa waryaa naga tag maan dhahno waa kasnaa bes ma ahane waa karnaa kasid keliya oon la aamusannahay nuguma filla waxa aan karno inaan qabannaan u baahannahay tusaale fiican oo marna naga nuxuusaya marna noo soo xoogaysanaya ayaad si kama dambays ah yaad muxuu ahayd daaha uga qaadeen khayr iyo ajar iyo xasanaad allah idinka siiyo intii dhimatayna intaasaa shuhada ahe ilaahay jannadiisii ha ka waraabiyo inta dhaawacantana allah ha bogsiiyo laakiin waa dhimanayna waana dhaawacmayna ma dhihi karno markaan dagaalkan galna bisaa dhimashadu nagu bilaabatay nimanku dadka waa laaynayeen weliba tarab yani 100 iyo 600 u laayo waaya hal qof ma aha dhowaan magaalooyinka istaagay ee iska xoreeyey shabaabka wixii dowladnimada ay ku lahaayeen oo muddooyinka la soo dhaafo dhan ka maqnaa ilaahay idinkiis hadba intii suurtagala way soo gaari doontaa magaaladan guryo maamulka ah iskoolaad bara caafimaad wixii loo heli karo oo dawladdu maalin walba intay heli karta inay ula soo degdegto waa la suubinaya haddii alla yidhaah waxaan rabaa inta dhiman deegaanka galmudug baxdo aan maanta joogno markaan ka nimaado mudug ee galgaduud aan nimaado carrada dadkaana ay tirsanayaan inta badan maanta waa cadowgu waa laga xoreeyey dhiiggiinna iyo xooggiinna iyo maxaanku idhahdaa dawladda labada heerood iskaashateen ayayna ku timiday laakiin galgaduud iyo galmudugba waa dhiman yihiin haddii shabaabku meel yar uu ka jirana inta soo cifow halkanna waa soo noqonaya waa imaanaya inaan xididda siibno waayo marka degmooyinka noo dhiman magaalooyin dhammoo waaweyn oo sidaanoo kale magaalooyin dhismay oo camiran ah ayaa cadowga naga haystaa barkaan jacar ka sii soco muxuu ahaaye ceelbuur galhareeri hore u sii soco ceeldheer maxaa galcad masagawaa dhul xaradheere oo inta ah u dhow ceel qooxle maxaanku idhahdaaye ceel garas yacni dhuloo dhan waa noo dhiman yahay marka xeradaan haddaan ka bixinna dhurwaaga xerada inta kaa soo gala ad iska bixiday laakiin bannaanka taagane wuu soo leh arigaagu nabad ma aha arigaagu weli nabad ma aha ilaa dhurwaagaasi ama aad disho ama meel aanu ka soo noqon karin aad geyso nimankaasi meel aanay ka soo noqon karin iyo badda inay ku cararaanaan rabnaa ay baxaan marka degaanada qaarkood waa dhow yihiin akhyaarta inta joogta xasuusaxiin dheeroo kale waaba kanaa waa muuqdaa ha la yidhi marka dhulku waa dhulkanagii haddii uu dheer yahay iyo haddii uu dhow yahayba laakiin ka dhowaan ka bilaabaynaa kan dheerna waa ku tegaynaa safarka 1 kilomitir aad uga socoto waxaa la yidhaha hal tallaabo ka bilowdaa tallaabada ugu horraysood qaaddow ka bilowdaa safarkii waa bilowda tallaabada koowaad tallabaad ilaa 1 tallaabo aad 1 kilomitir safarkii aad ku tagto waa guulaysanay li'anna xaqaan ku taagannahay
diinteenna xaniifka ah waxa ay nafaraysaan ku taagannahay dulmi kuma taagnin been iyo huhaa sheegi mayn waa ku celceliya nimankaasi wadaadana ma ah diinna ma ah waa gruub maafiyo burcad waaye oo hugsaday mara diimeeday hugsadeen waxaan u baahannahay marada inaan ka qaadno dadku si uu u wada arko inay maafiya yihiin burcad inay yihiin dadku inuu wada arko walaal mala ogaaw wiilkaad adeerka u tahay midkaad abtiga u tahay midka aad eedada u tahay ama habaryarta u tahay ee shabaabka ah waa shabaab wiilkaagii maaha yaan lagu khaldamin sidaas aad iyo aad ayaan mar kale reer baxdow idiin salaamayaa idinkugu mahad celinayaa idiin bogaadinayaa idiinna ammaanaya insha allahu safarkii ugu horreeyey uguna dambeeyey ma noqon doonee waa idiin soo noqon doonnaa annagoona helikobtarra ku imaanayna jidka ku imaanaynaa idiin imaan doonnaa haddii alla yidhaahdo aad iyo aadaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu